muuqaalkaasi aad u jeedaan waa qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho inkastoo si rasmi ah loo ogeyn goobta uu qaraxaasi ka dhacay laakiin faahfaahinta dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Uurada aad u jeedaan waa qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho. qarax labaad ayaa dhacay. qarax labaad ayaa dhacay sidaad uurada kaga jeedaan qarax labaad ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho sida muuqaalkaba aad kaga jeedaan waa laba qarax daqiiqada qura ayaa u dhaxaysay qaraxyadaasi. uurada kale waa taa uuradaasi sii socota waa qaraxi koowaad oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. uuradaasi waa uuradii labaad daqiiqada qura ayaa u dhaxeeyay uuradaasi sii socota waa uuradii koowaad daqiiqada kadibna inta aysan baabi'in uuradii koowaad uu sameeyay qaraxi koowaad ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. qarax labaad ayaana hadda ka dhacay isla gudaha magaalada Muqdisho. faahfaahinta goordhow waxaad ka daawan doontaan isla beejkan rasmiga idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. isla sidoo kale website-ka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa www.simbanews.com ama .net. waa uuradii labaad uuradii koowaadna waa taa waa qarax ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. goobjoogayaal idaacadda la soo xiriiray waxay inoo sheegeen in uu ka dhacay gudaha laakiin aan si rasmi ah loo cadeey karin halka ay ka dhaceen labadaasi qarax. waa uuradii labaad. goordhow ka filo beejka qaraxyadaasi halka ay ka dhaceen iyo sawiradoodaba. uuradii koowaad ee qaraxa waa taa uuradii labaadna waa taa sida aad u jeedaanba waa qaraxyo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. rasaas ayaa dhacaysa sidaad maqlaysaanba rasaas teelteel ayaa dhacaysa. khasaaraha ka dhashay lama oga. uuradaasi aad u jeedaan waxaa sameeyay qaraxi koowaad uuradaasi labaadna waa qaraxi labaad ee isna ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho. inkastoo ay maalin jimco tahay oo ay shaqaynaynin meheradaha intooda badan ee magaalada laakiin dad shacab ah oo damaashaad xaafadaha u aada iyo goobaha dalxiiska ayaa jira. wixii faahfaahin barta rasmiga ee Facebook idaacadda Simba ayaa ka akhrisan doontaan.